waxaan ahaa hooyo 9 caruura leh. waxaan joogaa qurbaha. 9 caruurta qurbaha ayaan ku dhalay. ما شاء الله. هاي سجال عرّ عاو مركي ولا شيء. إكيد haa رأيك طبعًا. لو إيش كي بقولي طبعًا عرّ على ولا عاو. كوسا. aad iyo aad aniga iyo odayga iyo caruurta waa isla nooleen maasha Allah nolol aad u qurux badan marka lagu leeyahay 9 caruur de nolol aad u qurux badan weeyaan lama soo koobi karo. waxa dhacday inaa aniga caruurtayda halkii ku noolayn laakiin anigu dee wadankii markaa maaragtay lagala soo hadlo hooyo aabo maaragtay waxay ku leeyihiin wax meel dhigo meeshu waa qurbe yacni hagbadaha ayaan ku fiicnaa ma fahanti هاي. caruurta wax maaragtay dharka waxaan u iibin jiray iska jaban meelaha dharka jaban baa wax uga iibin jiray meelaha maaragtay adigu lacagta say lacag iigu dhigmato cuntooyin yararoo iska caadiya oo ugu عرّتها tuuri ملاك jira شلون بتحوي من جرتي. haa sidaa wax u dhigto anigu markaa beri ka maalin dee anoo lacag haysta wixii doonaa imaan إنا kara لله وإنا إليه راجعون. شو عرّتن لهذا حوا كل عيوة عرّ قاعد شل ودري. وملا وحيا بستعد ذو كريو. ورهبلو سها يا كداية. هاي. aad iyo aad marka caruurtayda wallaahi waxaan samayn jiray yacni heer bay gaadhin ay marka anigu ma fahansanin waxaasoo dhan horta caruurta cuntada hadday noqoto inay horta gabadha weyne aad iila yaaban tahay inay caruurta aad iila yaaban tahay waa arkaa laakiin waxaan isleeyahay ka faa'iidayso inta yaryar yihiin ka faa'iidayso intaa wax qabsan kartid inta yaryar baa wax qabsan kartaa هقبل markay أيوة تذكر شيء ما هقبل لعيه. haa hagbad baan ka galay waxaan ku idhi odaygaygan kac ku idhi hagbadihii markay iskuukay hagaageen waxaan sameeyey waxaan ku idhi xabiibi dhegeyso in 100,000 oo dollar baan hayaa carar wadankii tag bahal gurigoo kala kacsan inoo soo iibi anigana igu soo qor والله عرّتك قاعد شو نسي. haa هاي. ani marka igamaba dhaadhacsan caruurta inay gaajoonayso inay kibrayaan ba iga dhaadhacsan waayo caruurta inta yaryartahay baa wax laga qabsadaa baaban maqlayba هاي دمرة ما ساكت ديسان إمس دمرة عروضه قاعد شكو هاي وهذا إن داوني والله يبان كولي بلا وحي بس عاد كده يا عروض ليدي كل في إيمان كده بس كل تساري كوسا. caruurteedu maasha Allah caruur fiican bay haayeen iskuulka igama dacweeyaan meel la igama dacweeyaan adigu waxaa dhacday in maaragtaan odaygayga ku idhi xabiibi dhegeyso inoo soo iibi guri weyn guriga weynaa wuu soo iibiyey afrikuu tegey guriga weynaa wuu soo iibiyey wax walba dheg buu ka soo siiyey waa soo noqday haddana sidii oo kale ayaan maaragtay aan ku idhi sanadkan boosas inoo soo iibi ama jago jagooyinkiibuu sidii haddana noogu soo iibiyey jagooyinka hadduu soo iibiyey jagooyinka markan wax yar buu soo iibiyey isagaana isku soo wada qoray ani laakiin warqadaha la ii keenayo waa ku qoranahay odaygaygana aada u aaminsanahay marka waxaa dhacday inaa maaragtay uu jagooyinkiina soo iibiyey laakiin guri aanan ogeyn ayaa jira uu soo dhistay isagu si gaara وبقولكم كوسا لسه. may 100,000 hore si sharaf leh sidii rabay buu kusoo sameeyey guri weyn oo kor iyo hoose buu soo iibiyey dabaqa magacaygana ku qoran warqadihiina wuu ii keenay sidii aan isku ogeynay saxdii buu sameeyey mar labaadkii baan intii in lagu dhiibay waxaan ku yidhi boosas badan inoo soo iibi markaa boosaskii muu iibinine guri buu ka iibsaday boosaskiina dhowr boos buu iibiyey laakiin isagaa isku soo qoray laakiin warqado koobiya anigu magacaygu ku qoran yahayna wuu ii keenay laakiin kuwan dambe ما شاء الله صقرة ما شاء الله صقرة عرضتي لعقتي عرضت لو ديدي نبى قاتي ما شاء الله. هاي. hadday sidaa ahayd mar saddexaadkiibu wuxuu yidhi dhulkii baa la isku qabsaday jagooyinka baa la isku qabsaday ugaasoo xabiibi maxaad haysaa maanta maxaad biirisay waan hayaa baan ku yidhi maxaa dhacayo lacagtaasaan hayaa lacagtii wuu qaaday wuxuu yidhi dhulkaa inoogu soo seesayaa waan noqonayaa show markii ugu horreysay markii labaad uu tegayay gabadh buu soo guursaday mana ogi guri buu iibiyey gabadh buu aroosay gurigii buu geeyey jagooyinkiina isagaa isku qoray gurigana gabadhu ku qorayba gabadhu aroosay haa waa lacagta carruurtaada ka gaajoonaysay haa maasha allah. hay sidaa hadduu sameeyey anigu markaa ma fahansani
mar kasta uu soo noqdo halkanaa wax kasii noqdeen dhulkiibaa isgaadhay beeraan iibiyey bismillahi raxmaan raxiim marka anagu waxaan nahay markaa reer yacni dantay lahaayeen ee yurub ka gaadhay oo lacagihii adduunka haysta oo hantilayaala Hey. waxaa dhacday anagoo xaaladii ku jirna farxad maasha allah inay gabadhaydii weyneed horta ay ila culowday caruurtiina qaangaar ku dhadhowdahay maadaama si fiican u soo korin. haa Hey. inay tiraahdo hooyo waan gaajoonayaa oo aan fahmi waayey hooyo maaragtay waan dhaxamoonaya maanta iskuulka dhexan baan la fadhiyi waayey oo hooyo Maryamo ma iibsid boonka carruurta. maryaba waan u iibiyaaye maryaa jabanoo waxaan u iibiyaa dee markiiba maaragtay marka dhowr jeer qasaalada lagu maydho ee markiiba dee dufka kacayo oo markiiba fududaanaya Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Hey. waxaa dhacday inay maaragtay inantii reednaa naga aamu baan ku idhaahdaa maxaa ka sheekaynaysaa soodigii maryo fiican xidhnaa maxaa ku helay ilaahay ima tuso nin meele u cadday meeli ka madow xaaladiisaan ku jirnay ee ninkiina marba lacagiiga qaadayey ee uu maaragtay hanti ku samaysanayay waxaa dhacday inaa markii dambe ogaaday inuu gursaday waa ka aan sidhi iska aamu markuu soo noqdo isagoo ku hor fadhiya sheekadaa weydii aniga markuu yimi anoo yaabande waa kaygu yiri xabiibi ii waran ma fiican tahay haa waan fiicanahay haye ka waran dhulkii beerihii ka waran beerihii walaa iska abaar bay hadeer ahaayeen sanadka dambe way soo go-ayaan booyad heblaayaan iibiyey waxaasiba waxooga kama jiraan naagtaa sanad walba loogu tagaa ilma lagaga soo dhalaa halkaasaa maaragtay lagu haystaa haye ma ninkaa khaldan mise gabadha bal soo qora ma ninkaa khaldan mise gabadha carruurteeda gaajada ku dishay maca iskuulkii dhaxanta ay ku dishay ku aragta haye waxaa dhacday inaa maaragtay aan yaabanahay oo aan isleeyahay xaggaad wax ka bilowdaa anigu waxaan arkay horta inaan wax gacanta iigu jira aysan jirin gurigaas ugu horreeyeyna uu xaqiiqada uu yahay haye waxaa dhacday inaa maaragtay noloshii markaan adigu markii dambe waxaan si wax soo ogow xaqiiqadana soo ogow ugaasooy waxaan sameeyey waxaan ku yidhi ma timahaa ma naba timahaa waxaan rabaa inaa maaragtay hooyadayo xanuunsan iyo aan soo eego oo maaragtay aan maaragtay xaaladaheeda soo ogaado markaa markan adigu carruurta sii hay gurigiina sii joog adaa ku yidhi ninkii haa haye ani markaa tuhun baa i galay haye buulka lay weydiinaya ninkaa khaldan waa oohinta gabadhaa khaldan waa qosolka gabadhaa khaldan waa qosolka caawa dumarku xitaa gabadhaa khaldan bay leeyihin maasha allah caawa hablu waa fiican yihinba yaa idin duceey caawa intii ducada qabtay aa xagga hore soo baxday ku socon markaan waxaa dhacday inaa maaragtay aan tegey wadankii baan tegey horta gurigii baan tegey gurigu waa sax sidii aan ku fikrayay bay noqotay anaa ku qornaa gurigii markaan tegey dadkii ku jiray waan ka saaray waxaan idhi gurigan anaa iskale dad kalaan gashtay oo kiraalayaala waxaan ku idhi hadda kadib anaa gurigan igala soo xiriirasaan ninkaasi caynkaasina hadduu idin yimaado gurigan mas-uulna kama aha anaana mas-uul ka ah inagaana gurigan ka wada xiriirana haye dowladdii markaa meesha ka jirtayna waa u tegey waxaan idhi dhegeysta gurigaygan waa u baqayaa anaa iskale haddii lacalla qof doonaya inuu iibsado kala wareejin uu guriga caynkaasi uu noqdo qofkaas iga qabtay waa qof tuuga waraaqiisii markaa ma haysata adigu haa waan hayaa haye adigu wixiiba 2 wiig gudahood baan ku dhammaystay waa iska noqday waa kaygu yidhi maxaa markiiba ku soo celiyey maxaa waqti u soo qaadan weyday haddaaba tagtay dee wadankii maya waa caadi baan ku yidhi waxaan samaynayaa carruurteedaan u soo noqda horta waxaan u imi carruurtiiyo nacayb aan labadayada midna arki karaynin haddii carruurtii aan arki karin aan u imaaday waxaa dhacday hooyo gabadhii weyneyd iyo maaragtay adigu 2dii roonroonaa 3dii roonroonaa waxay yidhaahdeen hooyo waxaan rabnaa inaan nolol kala samaysano ninkan baad lacagta siisaa ninkan baad wax walba siisaa annaga hoos nooma eegtaan annaga idinkaana dhalay wayba wax noogu qaban laadihiin wayba waxaan u rabnaa aan idinka weynay marka labadeedu waxaan ku nidhahnaa maxaa ku hadlasaan hooyadan iyo abiin baa saa ula hadlasaan bilaa-aadamiin baa tiina socda meel fadhiista
lamaba sheekaysana waa hansalba kama qaadno hadda waa leeyahay carruurta naga xumaatay inantii weyneed boorsadeedii qaadatay hadda dad maqasho carruurta wax iibisay waa carruur gaajo lagu dilay bisha inantii weyneed alaabteedii waxeedii bay qaadatay meel gaaray degtay adigu carruurtii dhowrkii intii u waaweyneed oo dhan way ga guureen aniga xoogay markii uu ninkan khiyaanadiisiiba horta waagu igu bariyay carruurtii inay sii socoto waan arkay carruurtii qaar way dacweeyeen qaar waa guureen qaar nolol caadiyay samaysteen 9 carruur ay haayeen adigu aakhirkii waxa igu soo haray hal gabadha oo gabadhii u yarayda 9kii carruura ka kala tagay 8diiba way ga baxeen qaarna noloshay ka dhaceen nacastaasay iibiyaan qaar reeray dursaal ku yihiin oo markaan la hadlo hooyo ii soo noqda ay dhahdo hooyo ayaad hooyo u tahay dursaarkaa noo kaa dhaama carruurtii markay tageen ee gabadha u yarad ii soo hadhay meel aan wax ka bilaabo garan lahay waxba gacanta iigu jirin ayaa ninkii iyo maaragtay naagtii noloshan iyo howlahan khiyaanada ku heshiiyeyna ay isku boodeen ay ku tiri warqadayda aniga bal hortay soo sii tii wadankii joogtay haa isagoo halkan buuqayo warqadeedii buu siiyey waa furay markuu u furay ay kala tageen waxaa dhacday in maaragtay xoogay isaga subag baa kusoo booday cholesterol deetana dhakhtarkaa la dhigay deetana markii dhakhtarkii la dhigay haddana isagii baan ku mashquulay oo maaragtay dhakhtarkii baa la dhigay markaasaa layidhi waa qalliin wadnihiisaaba khalaasa la bedelayaa baytari buu u baahan yahay haddana waxaan sidhi dee waa odaygaagii waxba yacni haddii carruurtiina saa noqdeen carruurtii markaa 4 baa shaqaystaa carruurtii baan u tegay aabihin wadnaha laga bedelayaa baytari baa la gelinayaa saas ayay eegeen dee way igu qosleen waxay yidhaahdeen hooyo lacagtan annagaa shaqaysanay adigu taa shaqaysatay adigii ninkan lahaa ku tag ku guurso ku baashaal beero iibso booyada iibsaday aawe lacagtiini maxaa ku dhacay lacagteedina la siin jirtay maxaa ku dhacay hooy iska bax war naga tag waa iska tegay aduu dhakhtarkii waxna bixiyey waxna adigu laqal baytarigii loo geli haddana faalig baa ku soo booday dhinac baa qalalay nolosha adigu way adkaatay ninkaasi aad inkastoo dee uu aniga nafsigayga qudhiisa ku dhacay anigina kama maaragtay aniga qudhayda imtixaan kale igu socdo waatan carruurtii maaragtay iga kala tagtay gabadh yar baa gacanta iigu jirta markuu isagu dhulyaal iska noqday maaragtay aan waxba u waayey aan shilin u waayey meelaha dadka waayeelkaaba la geeyey iska xanuunsan haddii sheekadii sidaa ahayd aan yaabanay marba carruurtii qaar ku carar hooyo ay leeyihiin hooyo maxaya hooyo lacagtii may kaa dhamaatay inay kaa dhamaato hooyo ma ahayn waayo qofaad wax ugu qabatay lacagtan ma jirto xilligan markiiba inaad calaacasho maaha lacagtaada inaad adu meel dhigataabay ahayd oad ku noolaato beri ka maalin wixii kugu dhacaya marka ay maaragtay aad iskaga celiso waayo annaga hooyo wax aad meel noo dhigtay male hooyo waa gaajoonnay carruurtii iskuulkan saa u eegi jirnay oo maaragtay markay cuntada cunayaan dharkay xidhan yihiin baa saa u eegi jiray hooyo waana laku qosli jiray hooyo kor iyo hoos baan kuula hadalay waa naga diiday wax kasta waa arki weyday lacagtayada xaqayaga weyna ka soo baxayaa saasaan idin ku ducaynay hooyo iska baxa hindey mudgal hinda marka anigii waa garawsaday inaa maaragtay masiibooyinku